okay saaxiib yaal waxay inoo maraysa lacagtan OUD NZD waa Australian dollar-ka iyo New Zealand sidoo kale saaxiib yaal lacagtan sawirka guud ee in sal soo aadi doonto waxay inoo muujiyay NZD wax ka suganayna buy isku diyaariso kadibna saaxiib yaal sal qurux badan ayadana buy aado lacagtan maadaama sal isku diyaarinayso salkaas isku soo aado pair correlationska iyo matrixka saaxiib yaal waa waxay saldhig u yihiin falan qiimahayga oo waxa waaye ishak anoo soo hubinin lacagaha xaaladda indexyada ku sugan yihiin kaan noocaas ma ka qaadan marka haddii marka saaxiib yaal waxay inoo maraysa lacagtan descending-keeda ee halkan kusoo tagtaa idin dhahay waxaa ka suganaynaa in haddana laba midkood samayso haddii ay dhaqaaq ku tagto kale haddii ay dhaqaaq ku tagto waxaa ogaanaynaa in ay u socoto trailinekaas inay u socoto waa hadda lacagtan meeshaan hadda meesha ay joogto horta meesha hadda ay joogto inay buy kasii aadaa ka rabna oo saddex taabasho high probability trade with double top ah ka helno okay ascending ah haysana okay high probability trade valid trade waay valid strategy haddii marka waxaan dhahnay strategy-kan hadda ay ku socoto saanoo kale isaga sii socoto halkan descending-keeda ay dheereysato descending maxaa noo muujiyaa oo middle section inuu yahay oo qayb in la sii dhammaystiraa middle section-ka haddaa xasuustaan saaxiib yaal ardayda advanced ee teamka soo qaateen wuxuu ahay dhammaystire muujinaya trade in patternka is sii dhammaystiro patternkan oo ascending-ka oo high probability trade-ka abuuro oo saddex taabashada aan ka sugayno ayuu sii dhammaystiraa marka halkan inuu sas ka sameeyo oo saddex taabashada halkan ka helno dhaqaaqaas uu subiyo sidoo kale se haddii descending halkan oo kale intuu imaadane waxaa sugaynaa laba midkood haddii halkan dhaqaaq uu ku tagana inuu jebin karo oo retest soo samaysan karo oo saddex taabashadii candlekii halkan trailinkeena dhigeen oo soo taab saddex taabashada ku subiyo haddii uu subi waayana in halka uu kasii awarto descending-kiisii uu saasoo kale inta descending aan dhahno ayadana descending with descending oo noqdo bottom with bottom shirada qaadana ka mid ah saaxiib marka esas high probability trade ku noqoto lacagtan Australian dollar-ka ishak halkan ugu sii bixina haddii aan fiirino 1 hour kana maxaa inoo muuqdo saaxiib yaal waxaas wax ka duwan nooga muuqdo same strategy ilaa hadda aan inoo muuqdo oo labadii time frame aan soo fiirinaba sawir ka duwan man siinayaan in saas ay samayso labadaba marka probability waa in buy-gaas yar ay soo dhammaystirto selkaas in ay saas ku soo aadato sidoo kale haddii meeshaan ay sel xoogan ay kasoo samayso waxyaabaha dhici kara waxaa ka mid ah saaxiib yaal haddii meeshaan sel xoogan ay kasoo samayso strategy-kan kusoo jebiso inay falaaga halkan ka samayso saas ayada lagu sii wadi karo okay don't be surprised haddaa wax noocaas oo kale aragtid waa wax dhici kara maadaama dhaqaaq uu soo dhacayna strategy-ka lagu jebiyey isla markaasna waxyaabaha 9th rule-ka lagu ilaalisto waxay ka mid tahay in trade-ki dhaqaaqa lagu soo jebiyo flag la sameeyo kadibna saas uu sii socdo marka surprise kuuma noqon doonto haddii dhaqaaqa inta halkaas inta kasoo samayso maadaama halkan saddex taabasho ay ka abuureyso in meesha sal ay kusoo aado sidoo kale saaxiib yaal waxa loo yaqaano laakiin probability-ga trade-ka aan ka suganayn labadaas strategy inuu soo dhammaystiro possibility-ga inay saan noqoto ilaahay OUD NZD saaxiib yaal intaana ka bixin waxaa dib ugu celinaya haddii maxamed qays uu xaadir yahay aan fiiriyo gacan muu taagan oo kasii soconayna saaxiib yaal okay waxaa sameynayna lacagta weega noogu xigto saaxiib yaal waa lacagtii waxay inoogu xigto GBP waa isbuucii saddexaad oo u malaynayna saaxiib yaal falanqeynteena qayb ka tahay ka suganayna lacagtan strategy-ka inuu noo diyaar garoobo okay saaxiib yaal sawirka guud ee lacagta soo fiirina anagoo kasoo bilaabayna time frame-kan weega lacagtan hadda maxay inoo muuqinaysa saaxiib yaal waxaan u soconaa lacagtan halkan ka fiirino strategy-ladan waxaa waaye kuwa aan trailing sii saaray halkan dhaqaaqii suuq kusoo samaysa nasasho dhaqaaq nasasho haddana waxaan sugaynaa dhaqaaqaas halkaas kale inuu soo dhaco okay haddii dhaqaaqa in jebisana expectation meesha kale aad kasii suganin waa halkaas haddii si jebisana halkaas laakiin meel ay jebinayso ma u muuqato okay saaxiib yaal time frame-ka haddii 1 hour imaano meeshaan ila fiiriya waa kana double top keeni okay oo good double top-ka kale hadda aan ka suganayn lacagtan waa kan maxaa loogu socdaa fiiriya saaxiib ascending channel ascending-kan waa pattern separation oo muujiya suuq in sal la soo aadin doono saaxiib yaal sorry waxaa waa patterns-ku ka mid yahay reversal patterns-ka oo suuqa sal lagu soo aadiyo sidoo kale saaxiib yaal hadda lacagtan maxaa ka suganaynaa iyo waxaad sameynaysaan fiirina maxaa soo dhacay dhaqaaq ascending-ka abuurmay double top-ka loo socdaa halkan maxay ka sameynaysaa correction-kan flagan muxuu noo caddeynaya sii socosha inay dhaceyso oo buy-gaas sorry double top-kaas si qurux badan loo soo dhammaystiro kadib double top-kaas markii lasoo dhammaystirana saaxiib yaal selkaas quruxda badan inaan ka helno weegan hadduu ilaahay isla weegan ilaa iyo haddii caawa suuq markuu furmo ilaa iyo beri haddii strategy-kaas isku soo diyaariyo markaas maxay noqonaysaa saaxiib yaal high probability trade iyo valid strategy ay noqonaysaa oo double top ascending lagu tagay isla markaas asaas ugu soo faa'iideysana saaxiib haddii time frame-ka asii yaray saaxiib yaal maxaa arkaynaa meeshan fiiri 1 2 akaysana hadda 3 rejection ka dhacay sidoo kale saaxiib yaal lacagtan waxyaabaha possibility ay samayn karta waxaa ka mid tahay haddii halkaas correction saas oo kale ay samaysato in ay lacagtan saas isaga sii socon karto oo aansan aadin meesha ka sugayn possibility waaye laakiin probability lacagtan ay ka suganayn waa in taabashadaas
maadaama saddex taabasho suuq inoo caddeynaa in dib loo wadi doono haddana halkan waxa soo dhaca fiiri sawirka guud lacagaha anaga waxaa fiirinaa keliya waxa ma fiirin waxa soo dhacana waa fiirinaa nature-kay ka mid tahay nature-ka wuxuu inoo caddeynaa fiiri saxba dhaqaaqan soo dhacay halkan ka soo dhacay iyo correction-ka marka isku cabirtay fiiri correction-kii kale halkan noqona correction-kii kale saddex meelood laba meel kugu yahay waxay sii caddeynaysaa sii socosho kadibna lacagtii halkaas in lagu soo aadiyo inoo caddeynaysa marka waxaa ka suganaynaa lacagtan probability-ga in halkaas ay tagto kadibna double top-kiisa qurux badan ay halkaas noogu soo taabato kadibna sal aan kasoo salgareyno double top-ka saaxiibeel haddii halkan saan awal double top u muuqatay weegaas ignore gareynayna laakiin waxyaabaha trailankin ka mid ah inaan weega ixtiraamno waa sawirka hadda wuxuu noo sheegaa si socoshadaas yar inay dhacdo halahan yar waa ignore gareyn doonaa saaxiibayaal si waa 179 bip waaye halaan in ascending kusii tagto waa laga yaabaa saaxiibayaal marka in haddana israjarkaas laga soo celi marka laga yaabo saddex taabasho inta halkaas ka dhigato si laga soo aadiyo marka almost lacagtan ayadoo isdiyaarin israjarka halkaas aysan ii tagin ma qaadan doono haduu ilaahay idmo lacagtan probability-ga waa halkaas inaan noo tagto possibility-ga waxaan dhahdaa halkan fala ka samaysatay selkeeda saas kusii aada saaxiibayaal okay GBP saaxiibayaal JJ halkaas ugu bixina haduu ilaahay idmo lacagta weeyga noogu xigto waa lacagtay afiirino haddii aad sii tagno saaxiibayaal 1 hour maxaa inoo muuqdo waxaas wax ka duwan ma arkayna fiiri meeshaan saaxiibayaal dhaqaaq correction dhaqaaq halkan u jeedin marka kandaladii hadda aweega oo arkaysan meeshaan fiiri maxaa ka dhacay body waa fiican saaxiibayaal oo suuqa sal laga soo aadiyay dhaqaaq sal oo correction ka dhacay dhaqaaq waa kaas lacagtan saas halkaas ku soo sameysatay halkan waa hadda xastan weegiyadii oo falan qiimeyn waxa kamid ahay mara waxa ka sheekeynayna saaxiibayaal in meeshaan head and shoulder ee lacagtan sal si aadinay marka hadii next ishak saaxiibayaal next 1 year kala sii joogno qaybtan haddana maanta aan ka sugayn in noo soo sameyso waxa dhig doona hadda ka hor halkan ka sugayn marka maalin ka dambe saaxiibayaal strategy suuqa markuu soo dhameystira waxa arkaysaa waxyaabo qurux badan haddana waxa ka sugaynaa guud ahaan lacagtan inay probability-ga saaxiibayaal noo tagto double top ah helno sad qurux badan ka soo sugayno sidoo kale saaxiibayaal lacagtan maadaama GBP USD ay la shaqeyso GBP USD waxyaabaha hadda sameynayso marka loo fiiriyo sal ka sugaynaa sax okay waa arki doonaa ayadana waa tagi doonaa halkan hadda fiiri saaxiibayaal waxa cadeynaya meeshan waxa ka soo dhac 15 minutes flag marka imaadaan maxaa cadeynaya noqosh inay dhacayso fiiri saaxiibayaal descending qurux badan ma yahay mismaahan waa descending qurux badan oo ku cadeynaya saacad si socosho hadda marka maxay sameeyay israjarkii waa la jibi hadda lagu soo laabtay halkan hadda inay flag noqoto kadibna 15 markii loo joogo waa lacagtaas lagu sii push gareeyo haddii marka halkan ay ka soo laabatana waxa dhici kara waxa kamid tahay flaagi hadda idin sheega 1 hour-ka in lacagta salkeeda halkaas ay ka sii aado ama haddii kale mini inay tagto haddana marka la sii push gareeyo lacagta yaan laga fiirin hal jiho mar walba suuqa filter grade anytime frame theory waxyaaba ay sameynaysa marka forecasting ka sameynaysiina saaxiibaad notebook semester oo lacagta marka falanqeynaysa fiiriya si dib loo fiiriyo waxay sameynayso dhan note gareysta du ilaahidmo si wixii wax ka qurux badan ee ugu helan saaxiibaad maxamed qas gacanta soo taag walaal okay maxamedow lacagtan GBP JPY maxaa ka filaynaa adiga strategy-kaas hadda isla soo fiirinay wax ka duwan ma kaaga muuqdo ustaad wax ka duwan igama muuqdo oo waxa laga yaabaa inay double button-ka si fiican loogu gaarto kaas aan wuxuu noqonayaa high probability laakiin GBP USD soo dhacday lacagaha maadaama GBP ay ku xiran tahay USD na DXY oo buy aadi doono GBP USD na sell aadi doonto marka waxa laga yaabaa hadda meesha ay marayna inay sell si aad waa macquul laakiin waxa ugu muhiimsan inay noo taabato double button-ka taas ku rajeena oo double top-ka sameeyay oo lacagtan saas hadii noo sameysato mini double bottom-ka ana soo laabato hadda oo large correction-kan saan ay noqotaa may mini double top-kan oo correction-ka waa laabaysan bay kaas double top-ku weynaa waa mini double top-kan oo correction-kan ee saddex ku dhahno waxa haysana 1 2 3 ku haysana dhan salka saas uga soo qaadan waa sax tiriidka soo laaban kartaa labadaas taabasho hor u taabatana inta tiriidka ay sameeyeen way ka laaban kartaa ayadana oo hadda inay bilaad ka sameeysto contribution SLC aad maadaama GBUSD oo SLC aadis waa mahadsan tahay saaxiibayaal lacagtan GBP JPY halkaas ugu sii bixina haduu ilaahaydmo waxa ka sugeynaa sawirka guud ee probability trace inuu noqoto halkaas sidoo kale possibility waxa noqon kara in halkan correction ka sameeyay salka si aado sidoo kale waxa possibility kamid noqon karo inta halkaas saddex taabasho 1 2 3 ku noqoto halkaas laga soo aadino waa saaxiibayaal suuqa asugna wuxuu suuqa sawirka noo siina aan fiirino anagoo arkeen wax qurux badan qaadano
yaan lagu degdegin trade-yada inta badan waxyaabaha kugu dhici kara waxay ka mid tahay saaxiibayaal trade-kan oo kale haddii halkan marka hadda laga soo celiyey waxaa dhihi jirnay trade-yadan oo kale waxaa dhihi jirnay waxa loo yaqaano valid surrender and invalid trade marka trade la qaadan karo ma noqon karin haddii halkan hadda trade-kan laga soo celi lahaa meel laga soo celiyo maleen saddex taabashadan ku tixgelin lahayn markaas flag anagoo helna kadib qaadan lahayn marka maxaa dhacay surrender saas oo kale oo muujinaa sii socoshadaas marka hadduu ilaahay malsuuq patient ka sameeya saaxiibayaal ka socono lacagtaas GBP JPY lacagta noogu xigta waa lacagta walaasheeda beer correlation isku yihiin iskula fiirsanaa ku xigta saaxiibayaal waa lacagtan GBP USD okay xaaladda ku socoto DXY anagoo sawir guudna ka haysano isla markaasna lacagtan aan rabnaa saaxiibayaal inaan fiirino okay lacagtan saaxiibayaal haddaan fiirino waxaa suganayna inay noo tagto double topkaas saaxiibayaal double topkii ma sameynin waxyaaba mararka qaar waxaa dhaco lacagta in ii sheeg 10 bib ama 5 bib oo kale ignore gareyso meeshii aan ka sugaynay ayadoo ictimaadinaysa markaas oo kale marka beriyo kale waxay sameynaysaa trade-ka kale meesha ka sugaynaysa in laga soo celiyo ee xogaa ku darsanaysa waxyaaba retrace ay ka sameynayso kale halihii halkan ay ka qiyaantay halkaas ka soo gudaysa marka waa arki doontaan trade-kaas iyo qaabka loo suuqa loo fiiriyo hadda lacagtan meesha maxaa ka dhacay saaxiibayaal fiirino GBP USD haddii aan time frame-ka aan tagno halkan waxaa ka haysanaa saaxiibayaal in ascending-kaas guud ka haysanay lacagtii waxaa ka sugaynaysa saddex taabashadii waa la jibi correction hadda halkan ka dhacay oo inoo cadeynaa suuqi inuu sii socosho sameynayo haddii halkan ay imaano saaxiibayaal GBP USD waxaa ka suganayna aan fiirino iska tirtirno wax meelahan ku yaalo si wax qurux badan aan u aragno okay GBP USD daraad saaxiibayaal waxaa laga soo celiyey ayada iyo Euro USD same strategy abuureen hadda xasuustaan oo ujeedin saaxiibayaal wax saas oo kale hadda ka sugayna Soomaa okay si waxaas wax ka duwan aan ka heli karnaa ugu fiirino possibility-ga aan fiirino saaxiibayaal lacagtan probability-ga lacagtan probability-ga saaxiibayaal waxa waaye in halkaas flag ay ka sameyso kadibna halkaas sell ay ka soo aado okay sidoo kale saaxiibayaal halkan oo kale descending inay saas oo kale ka soo abuurto waa macquul saaxiibayaal lacagtii halkaas inta dib loogu celiyo 1 2 3 saddex taabasho halkaas inta noo sameyso ama weliba si fiican halkaas noogula jebiyo double top keeni si qurux badan noogula soo touch garay saxan markaas noogula soo touch garay kadibna buygaas ay kaga faa'iideysano ayada GBP USD iyo GBP JPY laba beer isla dhaqaaqaan waa saaxiibayaal sala wada aadan buy wada aadan sidoo kale waxaa dhici karta lacagtan halii GBP JPY u dhiman ayadoo USD ina khilaafto Arab waxaa dhici karta in flageeda iska saas kale ka dhigato iska dheereysato marka GBP JPY is diyaarsanay salka isla soo aadaan sidoo kale waxaa dhici karta si GBP JPY inay raacayso kugu muujiso kale in lacagtii sameyso saaxiibayaal in markii halkan ay imaato halkaas kale ay imaato in halkaas ay sii aado ayadoo halkaas saddex taabash ka soo dhiganayso oo halkaas ay sii aadin halahan ay halkan sii aadi doontana aan xisaabin waa imisa bib waa 190 bib tii hadana 170 bib marka waa isku inta u dhiman labada lacagood meesha u dhiman waa hadii halkaas geednana waa arkayna marka saaxiibayaal GBP USD probability-geeda maxay inoo ah in halkaas flag ka helno anigu USD ka fikireyno in halkaas flag ka helno dhaqaaq halkan noogula soo jibiyo haddii halkan mar walba dhaqaaq ku taxadir adoo dhaqaaq helin trade-ka ku degdegin saaxiibayaal 1 hour asii tagno haddana waxay noo sameynaysaa ujeedin flagan saaxiibayaal oo noo cadeynaysa sel qurux badan in halkaas ilaa halkaas ay imaanayso marka halkan haddii dhaqaaq ku imaato kugu jibis waa waxa rabin oo flag halkaas ka hesho ama dhaqaaq inta kugu imaasho ayada korkeed flag inta ku sameysa saas ay kugu sameyso labadaba ka digtoonaa sidoo kale dhaqaaqyadu markii suuq meel kugu imaado adoon flag helin in qaadato waxyaabaha ay ka caawinayso dhibaato ku geyn karto waxaa ka mid ah halkan fiiri dhaqaaqa soo dhacay ninkii maskaxdiisa suuq yaqaanay dhaqaaqa suuq u soo wuxuu sugan lahaa flag kadib lacagtan sel u sii qaadan lahaa isla markii waxa laga yaabaa selkaas candlekaas inuu arko halkan soo maraa inuu sel u qaatay waxaas oo kale ay ku dhaceen ilaa intaas oo kale lacagtiisa asalkiisa halkaas inuu yahay isla markii inta la hidgareeyna suuqii laga saaray hadhown selkii hadan lagu soo aaday marka saaxiibayaal suuqa ayaa lagu degdegin suuqa patient ka noqono ilaa sawirka saxan suuq saxda mar walba aan ka heli doono hadduu ilaahay idmo lacagtan GBP USD ayayna saaxiibayaal kaas ugu sii baxno waxaa ka suganaynaa ishak in probability guud waxay tahay inaa keeno selkaas possibility-gana waxa waa si GBP JPY u raacdana saaxiibayaal in halkaas oo kale saddex taabash ka samayso 1 2 3 kadibna selkaas halkaas ay nooga soo aado sidoo kale waxaa dhici karta saaxiibayaal haddii ay lacagtii in saddex taabashadii kore ee double top ka sugeynay BBC jaf saaxiibayaal time frame ka day idin geeyo meeshan waxaa nooga muuqdo inuu soo samayso suuq saaxiibayaal dhaqaaq inuu soo suubiyey dhaqaaqi uu soo suubiyeyna hadda waxaa ka suganaynaa in ku jiro expanding in la sii wadi doono continuation maadaama uu yahay okay hadda halahan haddaa fiirina saaxiibayaal lacagtan waxaa dhacday waxa loo yaqaan qaabkan okay lacagtan waxay ku jirto saaxiibayaal double top kan in loo celinayo ujeednay okay sidoo kale saaxiibayaal waxyaabaha pattern separation ka waxyaabaha suuqa dadka intooda badan aysan aqoon waxa kamid ah lacagta halahan dambe ee suuqa waxay sawirka ku siinaysa guud wuxuu ku cadeynaya lacagtii noqosho inay dhacayso fiir
lacagta hadda halkan dhaqaaqay soo samaysay correction yar halkan gash halkan maxay samaysay fiiri descending journal oo saddex taabasho 1 2 3 aad dhigi karno marka waxay ku cadeynaysay halaas waxay ku cadeynaysay suuqa sel qurux badan la sii aadin doono buy in la kala wareejin doono oo buy la aadin doono saaxiib yaal marka halkan waxay sameynayaan double topkii marka hadda lacagtii waxay samaysay descending kale samaysatay oo ay ku tagaysay double topkii ku tagto 1 2 3 saddex taabasho okay maxaa dhacay meeshan ila fiiriyo saaxiib waxa dhacay dhaqaaqii soo dhacay maxaa dhacay correction la mid ah fiiri correctionkii dhaqaaqii la ekaaday si fiican u fiirisan hadda waxay samaysanaysaa marka saaxiib probability possibility lacagtan aan fiirino probability lacagtan hadda waxay tahay halkan maadaama 1 2 3 ka heesano in dib noogula celiyo lacagtan halkaas ay ka samaysato waxaas ujeedin oo ishak saaxiib yaal double topka ah miniga ah oo halkan anagu ka fiirin in dhahno kadibna lacagtii saaxiib yaal salkaas quruxda badan halkaas in naga soo aadiyo this is what we need as probability saaxiib yaal suuqa noo soo biyo haddii ay sabta bin weys maxaa dhici kara marka saaxiib yaal wax possible ah maxaa waaye maadaama halkan uu dhaqaaq soo dhacay in halkan falaag ka abuurato isla jarkaana ama dhaqaaq falaagan korkiis lagu abuuro ama dhaqaaqka lagu soo jibiyo oo falaagii ahelo kadibna lacagtii halka inta laga keeno meesha meel laga celin karo waaye haddii laas meel soo gudubtana 90gaas quruxda badan saas loo soo aadiyo marka lacagtan saaxiib yaal si wejiga guud ee lacagtan ka suganayna GBP CHF waa inay saaxiib yaal buygaas quruxda badan noo soo dhamaystirtaa waliba buygana ma sugi doono waa kaga faa'iideysan doonaa haddii aan fiirino waa intee bib saaxiib yaal fiiriya waa 142 bibs waa 142 bib marka waxa ka suganayna caaw suuqa duu furmo candlekii kale salka inuu sii aadiyo rejection as noo soo abuuro kii kale oo buy noo abuuro kadib meesha ka sii qaadan doono marka ku degdegi doono ilaa iyo wax saas oo kale uu ku subiyo haddii candleka marka ishak saaxiib candleka kale isagoo sii noqdo halkan taabto rejection soo subiyo oo asoo ku abuurayo morning star oo kale kadibna saaxiib suuqii buygaas ku aadiyo candleka kale morning markuu is dhameystiro qaadan doona intuu morning iska dhameystiro ma qaadan sidoo kale ha ku degdegin oo kale sababtoo ah haddii morning intuu u maleysid candlekii hore ka soo laabtay falaaga hadda kugu noqdo oo suuqii sal kugu aado aday SL-kaaga kaaga dhacaysa SL-kaaga halkaas oo kale inuu ku yaala laga yaabaa marka labada guji ee guud ee suuqan u sugan doona saaxiib yaal waa kuwa buyers inay noo soo samayso kadibna sell high probability halkaas ka noqonaysa inay noo soo saaxiib yaal haddii halkaas falaaga ka helana saaxiib possibility waxyaabaha ka mid ah trade-ka aan ku qaadan karnay macquulka taa saaxiib yaal okay waxaan sameynayna lacagtan waan kasii soconaynaa saaxiib yaal GBP CHF halkaas ugu bixin haddii 1 hour sii fiirinay sawirkaas sawir ka duwan ma arkaynaa still waxaas wax ka duwan ma arkayna halkan dhaqaaq falaag yar halkan kala falaag kala hadii ka samayso sal in lagu sii aadi karo kuma muujinaysaa sidoo kale saaxiib yaal inay weegid ku samayso reversal action halkan ay double topkii lagu soo tago halkaas ay lacagta ku salkaas ay ku soo samayso insha Allah take care saaxiib yaal lacag inta iska soo dhamaystirayso weeg waxay ku jirtaa lacagaha fursadaha quruxda badan ee suuqa abuuraya weegan ku jirtaa salka laakiin aniga muhiimadda guud maxay tahay salkaas inaan ka soo faa'iideysano baygana waa iskaga xogaa yar shaaxa ka dhiganayna oo qaadanaynaa laakiin bayga waa waxa ka salkan ka qaadan doonaa baygaasna qofkii ka sii faa'iideysanayo oo furan daa fursad u furo waan saaxiib yaal okay haddii aan fiirino saaxiib yaal euro JPY beerka noogu xigo week aan fiirinayno daytime frame aan idin geeyo saaxiib yaal haddii aad taqaanaan waxaan ii sheega bal team waxa ii sheegtaan double top correction haddii lagu jibiyo saaxiib yaal maxaa u naqaanaa baatankaas magaciisa ii soo qor haddii aad taqaanaan double top correction lagu jibiyo maxaa u naqaanaa saaxiib yaal ما شاء الله صاحب يا وما سنتين إلى سرعتان ما شاء الله صاحب يا هكذا حق سجرين العتن يورو جي بي واحد حسيتان حق سجرين دبل توب أوكي دبل توب كي ولا جي بي حلو جي بي في لي صاحب حساسه كلا جي بي أوكي هذا يورو جي بي واي صاحب يا صبر كجود العتن عم فيرن وحنا شاقي عم فيرن صبر كجود العتن فرحان إيد لعدك صاحب وشقينا يا دنكا واسكفير إن شاء الله أوكي صاحب المركز سبرك جودي لعكت أفيرنه سبرك جودي لعكت وحنا تاي صاحب وحكسوا يعني إن إيشك صاحب لعكت حكسوا سعودي إن سندين كان هل كان ميني كسمة ستة والبوش جري إن سي لعكت بايك قروح بايك إذا أصيب صاحب حكسوا جرينا مركو حكسوا جرينا إنها كانوا كل لارج فلاقوا إنه نقط كدينا بايك وعليه كان سما لا هل كسوا كل اللي laakiin si hadda meesha aan dib loogu soo celiyo halkan waxaynu sheegaysaa disindhiga meeshan ka dhacay sindhigan ka dhacay waxaanu muujinaysaa lacagtan soo noqosho inay dhacayso marka soo noqoshada say ku dhici kartaa 4 hour tagna saaxiib yaal 4 hour hadda tagno meesha maxaa arkaynaa saaxiib yaal suuq wax qurux badan ka arkayna oo ah okay
saaxib da 4 hour tagno lacagtan waxa ka suganayay double top kaas in laga soo celiyo okay double top kii waxa lagu jibiyay saaxib correction kaas lagu jibiyay hadda correction ka muxuu sameeyay saaxib yaal 1 2 3 saddex taabasho sameeyay idinka tirtir waxaan meelahan ku yaalo si aad u aragtaan lacagtan haddii aan rabno saaxib yaal inaan sal u soo qaadano maxaa u baahanaa kow waxaa u baahannahay inaan helno dhaqaaqaas oo isla jirkaan trilankan halkan lagu soo jebiyo balaagaas inaan helno kadibna lacagtaas halkaas aan ka salgareyna saaxib haddii aan sal u qaadanayno waayo sababtoo ah lacagtan hadda maxaa kaloo ay macquul ay tahay inay sii soo saaxib in lacagtan halkan saan ku sii socoto ugu dambeynna meeshaas hadda idin soo calaaminaya daytime frame kana meeshaas ay salka soo aado laakiin maadaama hadda euro ay isku diyaarisay saaxib inay soo aado JPY na waa fiirin doontaan wax isku diyaarinaysa ayadana laakiin lacagtan sawirka guud ee probability-geeda waxa ka sugan in salkaas ay noo sameeyso possibility-gana waxay ka mid tahay saaxiiba in lacagtii saas oo kale anoo trilankeena si mudfaan gareyn doono mar walbo in ilaa ay double top-kaas si fiican loo gaaro kadibna lacagtii halkaas ay salka soo aado saaxiiba haddii marka lacagtii halkan ay saaxiiba inta ku soo laabato strategy-kaaga haddii ku soo laabato ee falaagan ku siiso falaagan ka heshid kadib oo triline dhaqaaq lagu soo jabiyay falaaga heshay waa probability-da inta badan risk inta reduce-ka ku qaadano dhaqaaq triline lagu soo jabiyay falaaga ka helno kadibna saaxiiba sal waliba halkaana TB1 adoo ka dhigan doona sababta lacagta meesha suuqa ma laga celin karo waa fiiri suuq buy iyo suuq sell ku kulmay suuq buy iyo suuq sell halkan ku kulmay oo kana sell ah iyo kana buy marka meelaha laga celin karo suuqyada ka fikiraysan laba jiha suuq meel ku kulmeen waxyaabaha ka dhigataa meelaha laga celin karo haddii aydan dhaqaaq ku soo jabiso haddana falaag kale in halkan ka fiirisid adoo halkan si fiirna waxay suuq ka soo bisay ilaa ugu dambeyn 90gaas inay soo buuxiso haddii weegan euro JPY waxa ka suganayna probability ku aadan ayna siiso waa 520kaas bib ilaa laakiin 90 halkan ku ka dhiganayna kadibna ilaa halkaas inay sii noqoto maadaama correction halkan uu ka soo bilaabo okay saaxiibayaal waxa sameeynayna lacagtan euro JPY maxaa maqaysaa fiirinayna fikir ka duwan haddii uu haysto ama aan ii sheeg waxa loo yaqaano beela awe maxamedow bal nala fiiri lacagtaas maxaa kaaga muuqdo ustaadii euro JPY horta waxay jabsatay double bottom-kii oo muddo ka suganayna noo aaday qaab ku jabsatay janale double top-keeni haddana waxaa u malaysaa inay soo laabanayso marka hadda impulse xukun kusoo laabatay trilankan soo jibiso markaas waxaa high probability waaye haddii impulse-ga ACGB soo laaban ee meesheeda correction ka gashay ee si baxda inay korsigeeda ka rajaynayna maadaama impulse ku horreeyay impulse correction impulse kale loo isdhimayaan waa macquul ayadan haddadan xitaa waxyaabaha macquulka waxyaabaha ka mid haddii aan 1 hour oo kale time frame sii tagno si agas oo asiga high probability u noqdo saaxiibayaal waxay noqonaysaa in ishak saaxiibayaal halkaas trilankin haddaa dhigano in meesha hadda ay joogto ay ka qaadato mujidin rejection in lacagtii la celiyo halkaas ka heshid 1 halkaas ka heshid 2 halkaas ka heshid 3 selkii markaas ay meesha ka soo aado waa aag waxyaabaha ku naqaano waaye aagan waxaa ku naqaanaa in ascending lagu jabiyo oo saddex taabasho ka helno riski ka soo qaadan halkaas oo kale haddii taabashadaas ay tagto ee dhaqaaq ku tageen saaxiib dhaqaaq haddii ku tagto iska ilaaliya si socoshin haddii oo dhacdo ee halkaas lagu soo taabtaa macquul halkaas saas loo soo aadiyo marka haddii ascending kale halkan lagaaga abuuro ku cadaynayso noqosho inay dhacays in lacagta saas ugu sii faa'iidaysano falaagaasna qofkii marka riskiga aan soo qaadan karin inuu falaaga sugto kadibna lacagta uu sii qaato marka probability waxa waaye adheena in dhaqaaqaas suuq inta ku imaato falaagi ah haddii raadin saaxiib okay euro JPY saaxiib yaal halkaas ugu sii bixina xafiirin doona lacagta inuu wixii tobiga waxay noogu xigto euro NZD saaxiib yaal euro NZD aan fiirino data wiga idin geeyo time frame-ka saaxiib yaal lacagtan haddii aan date waliba ka bilaabno si wax qurux badan ugu aragtaan euro NZD waxa ka suganayna saaxiib yaal in double top-kaas ay noo tagto okay maadaama double top-kii aan ka suganaynay hadda maxay sameynaysaa saaxiib yaal dhaqaaq correction oo noo sii cadeyna in double top-kii loo socdo sidoo kale halkan darad waxay ka sameysay rejection oo inay rejection-ka marka ma noqon karo inuu kaliya lacagta sal soo wada aadina sidoo kale correction inay noqoto maadaama time frame-ka uu yahay time frame weyn oo noo muujinayo taan oo kale inay dhici karto kadibna sii socosho double top-kii si toos loo soo ajiib karay haddii double top-kaas ay jibisane surprise ma nala noqon doono waxaa naga koray double top kale aan ka sugan karna in lacagta laga soo celin karo okay haddii aan imaano marka time frame-ka ku aadan saaxiib yaal haddaa imaano time frame-kan 4 hour hadda meesha aad joogno waa meeshan saaxiib yaal okay waxaa sugaynaa lacagtan in halkan laga soo celiyo sababta u dhahayna halkan in laga soo celiyana waxa waaye meeshan waxa ka haysanaa saaxiib fiiri 1 2 hadda meesha joogto fiiri mini ka samaysanaysaa minigan waa wax macquul in halkaas inta markay tagto sal laga soo aadiyo sidoo kale waxyaabaha macquulka ka mid ah in minigan ascending-kaas lagu jabiyo
oo double topkii aag ay kuu noqoto minigan aag ay kuu noqoto ayada u socoto structure-kii aad taqaanay oo ascending-ka ahaa double top-ka ahaa halkaas inta marka ku tagtana saaxiib halkaas inaad sel kaga soo qaadano oo euro nzd selkaas quruxda badan kaga soo faa'iideysan euro nzd waxay ku jiri doontaa lacagaha beshinta ka ahaan doona ilaa laba jiha midkood ay yeelato oo ah in double top-kaas ay ku tagto halkaas sel laga soo aadiyo wax cadeen aana ka heshid in meesha sel laga soo aadin karo oo candle confirmation reversal aa ka heshid okay sidoo kale saaxiib haddii dhaqaaqeed ay wadatana in halkaas ascending-kaas yar aa ka heshid saddex taabashada oo double top-kaaga saas u tagayo haddii marka dhaqaaqeed ay sii wadatana ee halkan correction kaaga samaysatana waxaa haysataa in lacagtaas meesha u socotaa ujeedid oo ah halkan inay u socoto lacagta oo halka sel ay kasoo aadin doono marka euro nzd waxay noqon doontaa lacagaha wejeriska ku darsan doontaa oo ah top sixkani lacagihii uu koray waaye lacagaha hadda idin sharxayo waa lacagaha xoogaaga u dhimin in la isdiyaariyaan agtiis suganayno marka euro nzd saasaa ugu faa'iidaysan doonaa haddii 1 hour time frame aad tagno waxaan arkaynaa saaxiib alfiria in waxaan arkaynaa sidoo kale hadda expanding waa continuation oo kale waa dhigi karnaa oo ilaa halkaas lagu tagaayo oo halkaas markay soo taabato saasoo kale dib loogu celiyo haddana markaas si toos loogu soo aadiyo saaxiibayaal marka lacagtan hadda waxaa ka suganayna hadda meeshan waxay samaynaysaa fiiri saaxiib flag oo kugu caddaynaya sii socosh haddii halkaas laga soo celi waayo oo halkaas sal ay kasoo qaadan weyno oo reversal ay ka samayn waayaan ee dhaqaaq kale kusii jirto maadaama halkan dhaqaaq u yahay halkan waxay awareness correction u yahay waxaa samayn doonaa saaxiibayaal lacagta meesha u socoto waa halkaas isbaaradayna sii dhigan doonaa isla markaasna risk intii halkaas kaga soo qaadan doonaa hadduu ilaahay idmo euro nzd saaxiibayaal waxaa isleeyahay fursadaasa ka banaan hadduu ilaahay idmo waa iska faa'iidaysan doonaa intii ay idin sheegay haddii samaysa kaga qaadan doonaa lacagta wiigan noogu xigta saaxiibayaal waa lacagta GBP kaada fiirino GBP kaada waxay ku jirtaa lacagaha wiigan ii sheeg saaxiibayaal sarjarada quruxda badan noo sameeyey 4 hour kale haddaa idinkaga bilaabo saaxiibayaal waxay meesha joogto ujeedin waa meel double top ah okay halkaan haddaa fiirina saaxiibayaal sorry halkaan haddaa fiirisaan saaxiibayaal waa double top okay maxaa dhacay meeshaan la fiiriyay saaxiibayaal waxaa soo dhacay dhaqaaq hadda maxaa socda steep flag waxay muujinaysaa sii socosho sidoo kale waxaan dhahay saaxiibayaal filan qiimeyn waxaa ka mid ahaa steep flag wuxuu abuuraa waxa loo yaqaan large flag halkan ka imaado halkaas in loo celiyo halkaas saddex taabasho dhag dhaqto sel halkaas laga soo aadiyo okay marka GBP CHF saaxiibayaal waa lacagta weekend isla qurux badan samaysatay isla markaasna hadda meesha u diyaarsan tahay saaxiibayaal waxay soo jibisay fiiri haddii aad time frame ku sii yareeyo meeshan hadda waxay ku tagtay fiiri ascending ku tagtay double top ascending lagu tagay maxaa dhacay dhaqaaq maxaa dhacay flag probability-geeda kuugu hormariyo probability-ga lacagtan waxa waaye falagaas markay saas u dhamaysato structure-ka soo jibiso in horta ilaa 90gaas ay kusoo buuxinayso kow haddii 90gaas dhaqaaq ku imaatana correction halkaas ka helno ilaa halkaas marka haddii mar structure-kan halkan 90gan lasoo jibiyo lacagtan waa sii socon doontaa laakiin haddii meeshan descending kale inta isaga imaato maxay ku abuuraysaa markaas maxay noqon doontaa middle section ku noqon doontaa oo caddeynaya saaxiibayaal in suuqii saddex taabasho u socdo halkan ah 1 halkan 2 saddex section oo taabasho inaad ka haysasid kadibna saaxiibayaal lacagtii halkaas asal kaga soo qaadaysa marka lacagaha marka forecasting samaynaysaan saaxiibayaal waxaa ka fiirisaan meel walba oo wax walba macquul kugu dhici karo marka saaxiibayaal lacagtan high probability-geeda ka hormarno probability-geeda saa idin sheego waayo guud in halkan ilaa salkan soo dhamaysato kadibna la celiyo sababtoo ah haddii halkan dhaqaaq ay ku imaan weyso structure-kan hadda ay ku socoto ee sii wadato oo trilankin haddii halkan ay inkaga soo saaro saaxiibayaal haddii halkaas trilankin inkaga soo saaro oo haddana halkan trilankin ka soo saaran oo kale aan dhahno halkaas oo kale trilankin hadda ka saarno maxaa arkaynaa fiiri haddii lacagtan ay saaxiibayaal saan ku socoto fiiri saas haddii ku socoto waa middle section waxaa dhihi doonaa lacagtii patternkan ay dhamaystiraysaa oo continuation patternka oo large flag ay noo dhamaystiraysaa marka sell iyo buy waa kaga faa'iidaysan doonaa halan yar marka structure-kan iyadoo lasoo jibin lacagtan ma qaadan doona sidoo kale waxyaabaha macquulka ka mid ah waxaa ka mid ah saaxiibayaal in lacagtan hadda meesha ay joogtana inay halkaas saas inta ugu tagto aa dhexdeed saas kadibna halkaas isal ka soo aado haddii hadda saas ay noogu darto oo high probability noo noqonaysaa isla markaas ascending double top lagu tago mini ay kasii samaysa mini double top kale risk intii la kasoo qaadan doona ilaa salkaas halkaas ugu soo qaadan doona haddii hadda meeshan ay largigan halkan trilanka aad dhigatid halkan aad dhigatid oo inta soo socoto halkaas ay imaato strategy dhaqaaq kusoo jibiso marka candle-kaaga wiigaas kaa hooseena kusii xisaabtan dhaqaaq kusoo jibiso halkan ku imaatay dhaqaaq ku imaato falaag kala sugo lacagta sal qurux badan ugu sii faa'iidaysan doono ilaa hoostaas salkaas ayada waxaa ka suganayna ilaa meeshaas laakiin mar walba waxaa ku xisaabtantaa steep flagan inuu abuurayo large flag kadib kor lagugu celin karo marka probability-ga guud anay lacagtan saana ka suganaya hadduu ilaahay idmo kadibna salkaas dheerkaas ina markaas soo samayso marka sal iyo buyga fursadahana marka is abuuraana kaga faa'iidaysan doonaa laakiin labadaas jiha saaxiiba lacagtaas GBP
CHF saas u sugan in halkaas inta had meesha joogto laga celiyo mini level to customers halkaas risk ka soo qaada si sugani salkaas ugu soo faa'iideyso okay laakiin dhaqaaqa dib ugu noqoto waxa ogaata in la sii jibin karo strategy-ka waa markaas si toos u laabanayo oo dhihi karno taas dhihi karno marka mar walba trade line-kaaga waxa lagu imaado bit isweydiiyay hadda su'aasha isweydiiso jawaabta saxda ah suuqa su'aasha meesha u socda ogaana maxaa trade line-kaaga lagu imaado okay hadda suuqan marka meeshan maray hadda isweydiiyay la trade line-kaaga maxaa lagu imaado maxaa dhihi la ascending lagu imaado ayay cadeynaysa in la sameyn suuqa noqoshina dhacayso marka mar walba su'aasha iskale isweydiiyay hadda su'aasha isweydiisid jawaabtu waa helaysaa saaxiibayaal okay haddii aan sii wadno GBP ka saaxiibaalkaas ugu baxno maxaa noogu xigay lacagta nasdaqa fiirino saaxiibaal nasdaq weegan maxay soo beenaysaa fiirino saaxiib nasdaq aydan waxa u jeednaa in saddex taawashadii aan ka suganayna halkan salka inooga sameysay aan ka suganay halkan inaan salka kaga soo qaadano waa la jibiyay maxaa lagu jibiyay laakiin correction lagu jibiyay corrective strategy hadda maxay soo bixisay saaxiibaal lacagtii saddex taawasho 1 2 3 qurux badan soo bixisay hadda waa la soo celiyay lacag flag yar kan ka dhacay dhaqaaq kale kan dhacay hadda dhaqaaqan ay dhacay hadii ay noqon weyso saaxiibayaal correction kaas oo kale inta soo bisto dhaqaaqaas hadda oo dhacay noqoshadan hadda ay sameynayso hadii correction kaas oo kale inta noqdo oo trade-kaagii lagu soo laabto trade line-kaagii oo high probability kaaga dhigi lagu soo laabto laba midkood ay ku jirtaa dhaqaaqan iska dhamaystirmo flagan kala sugo flagan kala marka hesho lacagtii salkaas uga sii faa'iideyso lacagtan adoo aadan ku degdegin halana ka badan fiir halahan waliba b value khaasin fiir waa 583 dib saaxiiba marka in lacagtan hadda midda kale saaxiiba waxyaaba inta badan isweydiisan waxa kamid ah hadii lacag meel awal lagu aqooni jiray ejibis oo hadda fiir lacagta meesha ku soo socotay u jeedna sarajarada aan ka naqaanay lacagtan waxaana qaybtan hadda waxaan jiray marka waxay sameysay sarajaradii hore lagu yaqaanay waxa ayna sameysay dib dhaqaaq iska soo socotay ugu dambeyn maalin dhaxas maxay noo awartay sarajarkan noo awartay salkan waa ka soo faa'iideysanay baagan waa ka faa'iideysanay salkan kale waa ka faa'iideysanay baagan dad qaar ka faa'iideystay hadda maxaa sugnayna marka si lacagtan aan riskigeed aan ugu degdegin oo midda kale lacagtan lacagaas si fiican u dhaqaaqay ku jirta saaxiibaal take care ayadoo aan pure entry ku siinin ha qaadanin hadii kale waxa waa akoomada yar ee lacagta ku jiro markaas waxa waa uguma imaanayo hore xaalad ka xalfinaysa marka trade-kan saaxiibaal si u qaadato ku taageerto hadda maxaa soo dhaxay dhaqaaq wuxuu muujinaa in hadii meesha hadda candle ka socdo u jeednaa waa evening star suuqii waxaynu morning waaye waxaynu cadeynaysaa baageeda in lagu celin karo hadii baageeda lagu celiyo sidoo kale meeshaas double top ku ah in lacagtii hadda halkaas ay tagto kale hadda wixii meeshan ka sameeyay soo kale soo dhaadatay waa lagu celiyay hadda halkan ka imaata hadda in la celiyo kadib meesha sar hadda ka soo aado strategy kale in korkaas ku sii abuurto marka hala yaabin lacag oo meel strategy ku taqaan jirto markay jabiso suuqa inta strategy kale kaaga abuuraysa isaga har ilaa iyo wax qurux badan ay ku siiso ama hadii strategy ay ka jabsan hadii kugu soo laabato waxa ku qaadan kartaa trade-kaas dhigi kartaa riskiga trade-ka u bax marka أنا هدي نصدق قادم دون حسون دون هدي مش correction نقطة صار نقطة هدي كلا مش دور توب أنت نقطة candle confirmation أكل حياة أنت بدنا نصدق very interest واحد candle confirmation هذا وواح لسكوا حاليا كلا ساحب في candle confirmation candle كي سمع ستبو وcandle باي يسال كده وعدين نظيف إيه تعمل نصدق ساحب وحكى سوقنا سوي كاسات إيجن شيء إنه نص مسو ولي بعد time frame كان هذا أنا 4 hour in game هاي موجودة rejection نقرأ عمش سو كلا waxaa dhici kara candle-ka soo socda in soo qurux badan noqdo time frame 4 hour marka geeno oo soo xaroodo marka soo xaroodo flag in dad inta suuqeen oo soo suubin oo halkan uu ka suubiyo marka halkan ka suubiyana hadi waa u jeedaa flag oo cadeen ku taasacay si socosho halkan ka sii fikira TB1 TB2 halkan hadii marka halka soo jibsan ilaa halkaas marka insha Allah saaxiib take care lacagtaas nasdaq waxa ka suganayna jihadaas in korkaas u laabto in dawlad ka soo sameeyay risk ka soo qaadano hadii kala saaxiib lacag in la soo celiyo flagaas kadib flagaas aan qaadan doono hadii lacagta nasdaq qaadan doono dilaadmo lacagta salkaas ugu sii bixina maxaan ugu xig saaxiib kaad CHF oo kala fiirino maxay sameysay kaad CHF hadaa euro kaad ay kaga sheekayna saaxiib maxay isku diyaarsay in dhahay buy isku diyaarsay meeshan maxaa dhac fiiriye dhaqaaq hadda maxaa socdo flagan loo mid ku saaxiibaan time frame 4 hours ay bilaawa sababta waqtiga zaid yar zoomkana naga sii dhamaanaya marka waxa sameynaa saaxiib maxaa dhac meeshan fiir meeshan correction awal ka jiray correctionkii hadda way sameynayso sidoo kale maxaa soo dhacay dhaqaaq haddana maxaa dhacay correction sidoo kale waxa hadda suuqeena in dhaco correction ka hadda sameys mooy maxaan muujina 1 2 3 saddex section taawashana kaysan candle-ka meesha ku xiran kiis kale buy noqon kara don't be surprised marka waxa suuqeena lacagtan probability guud in halkaas ay tahay oo in meeshan ka sell galeen oo ka buy galeen wali candle-ka kale ee nooca deeyo time frame 1 hour kala tagano yiri sidoo kale halkan waxay muujinaysaa in flag kale uu yahay sidoo kale way jibi kartaa marka hadii saaxiibaal aan fikir guud ah haysan jirno waxa kamid ah dhaqaaqa soo dhacay correction-ka hadii correction-kan iska weynaado oo had inta baxo marka halka soo taabto hadan halka imaado
correctionkii dil istaajiyo dhaqaaqii malaa'igii am isku faaca markaas maxaa sugaynayna marka waxyaabaha intaad ugu soo diray waxay ka mid tahay haddii correctionka dheeraado sidoo kale waxaad samayn kartaa halkaas inay imaato oo meaningaas ay kaaga abuurto isla markaasna baageeda isku diyaariso marka lacagtan waxay isla shaqeeyaan eurocard marka qaadanaysiin lacagtan iska hubi insha Allah ee xaaladda ku jirto marka GBP CHF labadaas ka suganayna probability waa iyalkan possibility waa iyalkan double button inay imaato marka laga baageeyo GBP CHF sorry CAD CHF saaxiibayaal lacagtan saas ka suganayna oo maxay noqonaysaa markaas M structure W structure kii oo M inversity oo kale inay samayso saaxiibayaal waxaan ugu xigay NZD kaad oo kala hada fiirino maxay ku dambeysay xaaladeeda dib fiirino for time for hour kala tagno NZD kaad weegan waxa isla yahay ma diyaarsano laakiin lacagtan hadda hal midkood ku diyaar noqon kartaa hadii aan daytime frame geeyo for hour ka soo laabano hadda iska tirtirno structure-kan okay lacagtan hadda maxay samaysay saaxiibayaal lacagtan hadda waxay samaysay waxay noo abuurtay bar separationkii oo noo cadeynaya lacagtan dib loo celin doono okay markii la celiyo hadda maxaa dhacay in halkan hadda la keeno haddii halkan la keeno oo dib haddana halkaas loogu celiyo 1 2 3 ina dhaxdid kadib saaxiibayaal salkaas isas ku sii aad NZD kaad waa waxa sugan karno sidoo kale saaxiib maadaama hadda uu meeshan dhaqaaq soo dhacay maadaama uu soo dhaqaaq soo dhacay psychology-ga uu isticmaalaa maxaa suganaysaa flag ama dhaqaaqa flag markaa sugatid flaggan halkan u fiiri markii halkan ugu fiirisna saaxiib markii isla marka structure-kaas hadii marka soo dhex baxdo lacagta meesha ugu horeyso flag kale ka heli doonto waa halkan haddana ina halkaas ila tooskaas kugu sii aado marka saaxiibayaal hadduu ilaahay idmo waxaa suganaynaa lacagtan in labadaas mid sida in sheegayo ah in lacagtii halkan reversal candle ka abuurato dib loo celiyo saddex taabasho large flag noqoto usul noo sii aadiyo sidoo kalena maadaama hadda dhaqaaq uu soo dhacayna dhaqaaqa maxaa ka suganaynaa in flagaas oo kale ku siiso adoo flagan aad helin silha u sii qaadan lacagtan sidoo kale sababtoo ah ninkii hadda meeshan ku suuqan kale maray ninkan suuqa markii meesha maray ninkii buy u qaadan lahaa maxaa muhiimadiisu ah lahay flagaas kale diina si socoshin dhici lahayd maxaa kugu dhacay fiir candle waxaa dhacay bearish engulfing suuqii isla markii hore lagu soo gudbiyay marka candle yaa la bursanayn structure-ka suuqa mar suuqa dhamaystir sugo NZD ka saaxiib meesha uu sii baxaya waa si kormaray lacagan oo kale waa ka soo dhex baxnay lacagii aad diiradda saaranayeen NZD JB waa hada xasuustaan saaxiibayaal weekii hore ka faa'iideysanay meesha maxay samaysatay hadda u jeednaa middle section bar separation isla markii lacagta dib loo celiyay halkan saddex taabash ka sugeynay meesha maxaa ka dhacay Morningstar dib lacagtan sal laga socday hadda structure waxay joogtaa lacagtan dhihi karna waa laga sii buuxi karaa laakiin lacagtan falaag ka sugo kadib salkaas inay kugu sii aado hadduu ilaahay idmo oo ilaa iyo 90gaas ilaa iyo saaxiibayaal meesha inoogu imaato inaan ka sii faa'iideysano NZD-yada dhan xaaladda goon u fiiri insha Allah saaxiibayaal falanqaynteena week halkaas ku soo gabagabeynayna time-ka naga dhamaaday soo dhawaada saaxiibayaal NZD USD kala dib si fiirino waxa ka diyaar ayadana NZD USD saaxiib structure-keeda guudsaana inoo ahay salay ku soo socotay maadaama USD bear ay tahay hadda meel ay joogto meesha joogtada u jeedin meel ay ka abuuri karto candle kale oo buy ka sii aadi karto waaye sidoo kale meel ay ka abuuri karto flagaas oo kale ka abuurto ee salka sii aadi karto ayadana NZD sababtoo structure-kan ascending-ka ahay aan ka suganaynay jebisay maxaa dhacdane dhaqaaqan soo dhacay maxaa dhacay si flag kala weyn saddex taabash buu suubiyay halkaas sal qofkii structure-ka halkaas ka soo qaadan lahayn halkan wali 15 minutes kale flaga ku jiro wada filter gareysay hadda dhaqaaqa soo dhacay halaan waa isku dhaqaaq maxaa suganay flag kadibna lacagtaas haddii aan sal ugu sii faa'iideysan sababta USD xaaladda ku jirta u jeednaa oo asalna isku diyaarinayso haddii sida buygi aydan possibility ay samaysatan lacagtan in dibkaas loo celiyo hadduu ilaahay idmo saaxiibayaal falanqaynteena week intaas uu egyahay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad waxaan samayn doonaa falanqaynteena oo dhammaystiran YouTube-ka soo dhigi doonaa teamka uu ka buuxsamay insha Allah week-ga waxaan rajeynayaa saaxiib week qurux badan inuu noo noqdo hadduu ilaahay idmo mar walbana saaxiibayaal waxaan ku dhiirigelinayaa in waqtigiina ugu badan ee aad ku bixisaan inaad saaxiibayaal suuq waqti gelisaan trading view-ga iyo qof kaaga turjumin wax akhriso muhiimadda guudna saaxiibayaal suuqan dad badan waxa arkaysaa in suuqa ka shaqeystaa oo kulay qof suuq ka shaqeysto oo signal qaadanaya arkaysaa at least qofka xitaa trade ID ninka qaadanaya nin suuq wax ka yaqaan waa tusaale kale in aad structure inta soo diyaarisid aad dad public la soo wadaagto qofkii qaatay nin wax yaqaan waa sababta cilmiga ku qaatay wixii meesha ka muuqdo u soo muujistiray laakiin san u soo saartay wuxuu ka dhaxbaxsanayaa sawir inay wixii saxan inay qaldiin oo kale ku ogaan kara saaxiibayaal marka insha Allah saaxiibayaal wax barta suuqan waqti geliya insha Allah emotion-kana controller trade-yada ka qaadanaysan intii sira ay la wadaag saaxiibayaal kaga faa'iideysta waa mahadsantiin saaxiibayaal assalaamu calaykum galab wanaagsan